Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Somali Events. Waxaan idiin haynaa qiso dhex martay wiil faqiir ah iyo gabar taajirad ah. Macallimad ayaa waxay soo kaxaysay gabdho ay macallin u ahayd si ay u soo sameeyaan cilmi baaris magaalada bannaankeeda. Markii ay soo dhameysteen hawshoodii ayaa gabar ka mid ah gabdhihii aaday meel aad uga fog meesha ay joogaan gabdhihii. Waxaana si lama filaan ah u soo dhaqaajiyay gaarigii baska ahaa ay saarnaayeen gabdhihii. Isla markaana waxaa halkaas looga soo tagay gabadhii waxayna isku dayday inay ka soo daba cararto balse nasiib darase way maqli waayeen. Gabadhii markii ay quusatay ayaa waxay go'aansatay inay iska soo lugayso. Markay qorraxdu dhacday ayaa waxay dareentay cabsi aad u weyn. Markii ay sii maqashay baalaha qayladooda ayay aad u sii cabsatay. Ayadoo yaaban ayaa waxay aragtay guri yar oo meel fog ka muuqda. Aad ayayna u faraxday waxayna isku dayday inay u soo dhaqaaqdo guriga yara meesha uu ku yaalay. Gurigan ayaa waxaa ku nool wiil dhalinyaro ah isla markaana faqiir ah. Gabadhii markii ay u timid ayaa waxay uga sheekaysay qisadii iyo sida fudud looga tagay. Wuxuu ku yiri wiilkii, dhib ma lahan, iska seexo halkan sariirta ah. Anigana waxaan seexanayaa bannaanka. Subaxii markuu waaga baryo ayaa waxaan ku geynayaa halka basaska laga raaco. Gabadhan ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala ku manaystay qurux, waxayna ka dhalatay reer hanti leh. Wiilal badan waxay ku hamin jireen inay guursadaan gabadhan maadaama ay ahayd gabar akhlaaqdeedu wanaagsan tahay isla markaana gabdhaha asaageeda wax badan ka dheer. Cabsidii heysay darteed gabadhii ma aysan hurdin habeenkii oo dhan, waxayna arkaysay markastoo indhaha kala qaado wiilkii oo Quraan akhrisanayo kadibna aadaya meesha uu shumaca ka shidan yahay fartiisana ku gubayo. Gabadhii ayaa waxay u maleysay wiilkani inuu yahay wiil jinni. Markii uu waaga baryay ayaa wiilkii wuxuu soo waday gabadhii wuxuuna keenay halka basaska laga raaco. Gabadhii ayaa waxay ku soo laabatay gurigii reerkeeda waxayna uga sheekaysay aabaheed wixii safarka kala kulantay. Aabihii ayaa wuxuu go'aansaday inuu tago meesha uu wiilkan ku nool yahay si uu u soo ogaado sababta ku qasabtay inuu gacmihiisa gubo. Wuxuu soo aaday gurigii wiilka wuxuuna arkay wiilkii farihiisa oo dhan oo guban isla markaana ay ku duuban tahay maro. Aabihii ayaa wuxuu weydiiyay wiilkii kuna yiri maxaa kaaga dhacay gacanta. Wiilkii ayaa ugu jawaabay wuxuuna ku yiri gabar ayaa ii timid shalay oo ka soo luntay wadada waxayna jiifatay agteyda. Markii aan jiifanay habeenkii ayaa waxaa dhacday markii aan hurdo inuu ii imaado shaydaan iguna leeyahay gabadhan xumaan ku samee. Quraan ayaan akhrisanayay markuu ii imaado shaydaan si uu Allah iga celiyo xumaantiisa. Balse igama uusan tagin wax badan ayuuna igu soo noqnoqday. Markii uu imaadaba waxaan gooyay farteyda si aan u soo xasuusto jahannamo iyo cadaabkii Alle subxaanallah. Kadibna waxaan ku laabanay hurdadeeda wuuna ii imaanayay mar kale waxaan gubayay farteyda ilaa aan ka gubo dhammaan farahayga. Aabihii ayaa wuxuu ka codsaday wiilkii inuu soo raaco gurigiisa. Markii ay gurigii yimaadeen ayaa wuxuu u yeeray gabadhiisa kuna dhahay makasee gabadhan. Haa, waa gabadhii shalay gurigii ku soo dhaweeyay. Aabihii ayaa ku yiri wiilkii, maanta laga bilaabo gabadhan waa xaaskaaga aniga ayaan ku siiyay. Qisadan ayaa waxayna xasuusinaysaa xadiiska rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ku yiri wixii xumaana Ilaahay dartiisa uga joogsato wuxuu Ilaahay beddelkiisa ku siinayaa wax khayr qaba. Wiilkii ayaa Allah u sujuuday isagoo ugu mahadcelinaya nimcadan oo Rabbi ku manaystay maxaa yeelay xumaantii oo ka doorsoomay ayuu xalaal Allah raali ka yahay ugu beddelay. Fadlan hadda channelka Somali Events ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wax walba oo aan soo dhigno. Aad u mahadsantahay.